بسم الله الرحمن الرحيم كل wanaagsan qiyaarta nala socota idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo tabinta barnaamijka qubanaha barroosho iyo faaqidaada wararka caalamka waa si toos ah uga daawanaysaan YouTube channelkayga saaxiibayaal meel kasta oo aad joogtaan soo dhawaada waa 27 bisha Oktoobar sanadka 2025 qodobadaan idinkugu haya tabintana waxa kamid ah madaxa ugu sareeya hay'adda sirdoonka wadanka Masar ayaa waxa uu gaaray gudaha wadanka Lubnaan gaar ahaan magaalada Beirut isagoo la kulmay madaxweyne Joseph Aoun isla markaana kala hadlay arrinta la xiriirta hubka qaadista kooxda Hezbollah xilli kooxda ay si weyn u diidan tahay inay hubkeeda ku wareejiso dawladda talaabooyinkani waxay ku soo aadayaan xilli wadankaasi ay ka taagan tahay xaalad siyaasadeed oo aad u adag oo taabanaysa amniga qaranka wadankaasi Lubnaan isla markaana laga baqayo dagaal sukeeya wadankaasi in uu ka dhaco hadii la isku dayo kooxda Hezbollah in si xoog ah looga qaado hubka dawladda Masar markan ma waxay doonaysaa in ay ku milanto siyaasadda wadanka Lubnaan ka taagan oo iminka wajahaysa marxaladaasi xasaasiga muxuu yahay fariinta uu siday ninkaasi u qaabilsan hay'adda sirdoonka wadanka Masar ee Lubnaan uu geeyay warbixin ayaan idinkaga hayaa arrintaasi oo aan ku faaqidayaa barnaamijka khiyaaray madaxweynaha wadanka Ruushka Vladimir Putin waxa uu ku dhawaaqay in la sii ballaariyo tijaabinta gantaalaha cruise-ka oo madaxa ku qaadan kara bambooyinka nuclear-ka xilli qaar kamid ah dawladaha waaweyn ee adduunka uu Mareykanku kamid yahay walaac ka muujinayo waxa uu yiri wadankayga xaq buu leeyahay talaabooyinkan inuu qaado xilli maanta dawladdaasi Ruushka ay ku dhawaaqday inay qabato ama ay soo riday diyaaradihii ugu badnaa oo drones oo laga soo diray dhinaca Kiev waa Ukraine Israa'iilna maanta waxa ay ku dhawaaqday in ay bandowga ka qaaday qayb kamid ah dhulka Falastiiniyiinta ay ka haysato kadib markii uu sheegay Israel Katz oo ah wasiirka difaaca nidaamkaasi in isbedelada amni ee la gaaray ay wax badan oo muhiim ah horseedeen dhinaca Falastiiniyiintana Qaliil al-Hayy ayaa waxa uu sii daayay dhambaal uu ku leeyahay marnaba suuragal ma aha in la kala geeyo dhulka iyo dadka Falastiiniyiinta daanta galbeed iyo Gaza waxay noqon doonaan dhul aan weligii kala baadin dadka joogana waxay sii ahaan doonaan kuwa midaysan waa aasaaska dawlad rasmi ah oo Falastiiniyiintu ay yeeshaan ayuu yiri khiyaaray qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan taxliilinta wararka adduunka iyo faaqidaada barroosho ayaan idinla wadaagayaa ku soo dhawaada YouTube-ka oo subscribe saara aad baad u mahadsantiin